qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanka Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa taageero u muujiyay musharax xildhibaan heer federaal Marwo Xalimo Faarax Godane oo u taagan ka mid noqoshada aqalka shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Shacabkan taageerada u muujinayay Xalimo Faarax Godane ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Dooble markii dambana isugu yimid hoolka shirarka ee magaalada Dooble. Intuu socday isu imaatinka ayay qaar ka mid ah dadkii isugu yimid hoolka shirarka sheegeen in Marwo Xalimo Faarax Godane ay wax badan ka soo qabatay deegaamada hoos yimaada degmada Afmadow, sidaas daraadeedna ay mudan tahay in ay deegaanka u matasho baarlamaanka dalka. وأنا كسر دويني نروح بنيان نكون كرتاجنا هاي مشرحات حليمة فارح قلني. وكان بينجرين إنه حليمة فارح قلنا وي ده كانوا هيكسروا بتوع دكتين أنا لازم نسول دويسين قبلنا زيت وان قادة أنا ما قادين. وحاليا هاي حليمة فارح قلنا هم أنت يعني جو حنوار كايدي إن الكرسي قدونين أقول شلا إن الدنيس. وحقيقة الدكتور. odayaasha nabaddoonada iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay xalfadda qiimaha badan ee aan ku soo dhaweynayno musharaxaadna Xalimo Faarax Godane ku soo dhawaada ma sha Allah ma wax badan oo la doortay oo u daalnay oo u ka babalnay oo raxmo dishay oo waxa jirta jarada aan ka rabnay aan midna aan ka soo bixin in sha Allah xaqba leedahay way u soo halgalnay geedeen iyo geedgaab iyo guri iyo goof way u soo joogsatay maahan markii ugu horeysay oo taageero caynkan ah qaar ka mid ah deegaamada Jubbaland looga muujiyo Marwo Xalimo Faarax Godane oo u taagan ka mid noqoshada aqalka shacabka baarlamaanka Soomaaliya tan iyo markii ay shaacisay inay u taagan tahay xilka xildhibaannimo. Cabdinuur Xayi Xaashi, Jubbaland TV, Dooble.